السلام عليكم أصحابي maalin wanaagsan oo wacan walaashii Muna Amatullah maantana doonaysa in la qaybsato 5 practical tips to understand the Quran better 5 shay oo naga caawinaysa quraanka inaan si fiican u fahno insha Allah waa aniga wacdiga hooyo maalintii dhaweyto live-kayga mawduucii dheeraan ka hadlayay wuxuu ahaa why understanding matters more than memorization in quraanka la xifdiyo ay ka muhiimsan tahay quraanka in macnihiisa la fahmo marka ugu horeysa marka waxaan qodobo badan baan ka hadlayay maanta waxaan la qaybsanayaa 5 ka mid ah Number 1 waxa weeye learn the Arabic language luqadda Carabiga in la barto qof kasta oo muslimna waxaan kula dardaarmayaa oo kula talinaya insha Allah luqadda Carabiga inuu barto waayo waa miftaaxa diinteena quraanka markaad akhrinaysid haddaad Carabi taqaanid dhadhan iyo macaan gaar ayuu yeelanayaa marka insha Allah qof kasta waxaan kula talinayaa inuu luqadda Carabiga barto yar iyo weynba Number 2 waxa weeye read a trusted translation with tafsiir haddii aad Carabiga weli baran insha Allah waa baran doontaa waana bilaabi doontaaye waxaad sii akhrisaa insha Allah tafsiir turjumaan la socdo insha Allah tafsiir lagu kalsoon yahay dabcan ayaad akhrinaysaa waxaan qof kastana kula talinayaa quraanka markuu xifdinayo ama aayad ha ahaato ama shan ha ahaato ama suurad ha ahaato inuu insha Allah marka ugu horeysa tafsiirka akhriyo si uu iskugu dayo insha Allah inuu mawduuca yara fahmo intuuna xifdin ka hor Number 3 waxa weeye understand the context waxa aad u muhiima inaad isfahantid xataa asbaab nuzuulka waxaad akhrinaysid ama aayad hadda xafidaysid ama suurad xafidaysid inaad sabab nuzuulka akhrisid markaad akhrisid oo fahantid waxay kaa caawinaysaa kow inaad fahan saxiixa ka qaadatid suuradda ama aayadaha akhrinaysid iyo inaad fahantid macnaha guud iyo ujeedada ilaahay uga leeyahay suuraddaas ama aayaddaas Number 4 waxa weeye reflect don't rush waxa aad u muhiima in quraanka markaan akhrinayno iska dareerin uun aan tadabbur ku sameyno oo khushuuc la nimaano ilaahayna wuxuu ku yiri suuratu Saad kitaabun anzalnahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaatihi wa liyatadhakkara ulul albaab quraanka ilaahay wuxuu soo dejiyay hanuun iyo shifaa iyo waxyaabo badan waxaana ka mid ah asbaabuhu soo dejiyay tadabbur in quraanka markaad akhrinaysid ay yara istaagtid fakartid su'aalo isweydiisid aayadahan maanay la hadlayaan maxaan qabtay maxaan ka sameeyay muxuu ilaahay halkan iga doonayaa maxaan qabtaa aad isweydiisid aadan iska akhrin oo iska dareerin quraanka insha Allah Number 5 iyo kii ugu dambeeya waxa weeye learn and study with others carabtu waxay yidhaahdaan baan u malaynayaa alcilmu bayna talaamiid cilmigu wuxuu dhex yaala ardayda dhexdooda marka insha Allah inaad isku daydid inaad study circles ama classes meelo muxaadarooyin xalaqaad aad tagtid tafsiirka insha Allah sheekh dirir oo kale la socotid youtube-ka telegramka dad badan oo khayr badan baa ka shaqeeyo tafsiiro iyo wax soo gudbiyay muxaadaro iyo xalaqaad inaad meelaha khayrka aad ku xidhnaatid ayaa aad u muhiimsan insha Allah ilaahay aa noo fududeeyo quraanka fahankiisa iyo ku dhaqankiisa insha Allah ilaahayna ha naga dhigo ahlul qur'aan wixii talaya tusaale haysiin insha Allah hoos ku soo qoro comment-ka barakallahu fiikum for listening and insha Allah see you next time